maanta waa maalin dhilo weyn xambaarsan marka ay soo xasuustaan shacabka Soomaalida ogaadeenayo wareejintii dawladda Britain ay ku wareejisay gumaysiga Itoobiya. Gumaysiga Britain oo muddo gumaysanayay shacabka Soomaalida ogaadeenaya ayaa markii dambe ku wareejiyay gumaysiga Itoobiya guud ahaan dalka ogaadeenaya. Britain ayaa ku wareejiyay 1954 bishii 12aad 29keedii gumaysiga Itoobiya intii ugu muhiimsanayd dhulweynaha ogaadeenaya halka qaybaha kala qaar uu soo wareejiyay marar hore. Wareejintii Britain ay wareejiyeen dhulweynaha ogaadeenaya ayaa ka dhigan dhiilo iyo walaac. Wareejinta ay wareejisay Britain dhulweynaha ogaadeenaya kuna wareejisay dalka Itoobiya ayaa ahaa gumaysi in loo dhiibay dad shacab oo maati ah. Britain ayaa gumaysanayay gobolada waqooyi halka ay Talyaanigu gumaysanayeen gobolada koonfureed. Soomaalida kale ayaa loo diyaarinayay inay xiroobi doonaan balse ogaadeenaya ayaa 1954 gacanta laga geliyay gumaysi Afrikaan oo cadawa. Britain ayaa ahayd war mar walba naxdin leh. Itoobiya ayaa intii ay gumaysanaysay ogaadeenaya oo 68 sano u geysatay dhaawacyo waaweyn oo aan mar raba la ilaaweynin. Haile Selassie, Mengistu iyo Mele Zenawi iyo sidoo kale Abiy ayaa iskaga soo dambeeyay xukunkii xukuumadihii haystay guud ahaan dhulka ogaadeenaya. Wareejinta lagu wareejiyay Itoobiya ayay guud ahaan shacabka Soomaalida ogaadeenaya odayaashoodii diideen kana soo horjeedeen markii lagu wareejinayay gumaysiga Itoobiya dalweynaha ogaadeenaya. Wareejinta lagu wareejiyay gumaysiga Itoobiya ee ay ku wareejiyeen gumaysiga Britain ayaa ahayd wax aad loola yaabo. Soomaalida kale waa Soomaalida waqooyi iyo sidoo kale koonfurta oo markii dambe ku bahoobay dalweynihii Soomaaliya ayaa xiroobay 1960kii taasoo oo dhinac walba loo diyaarinayay inay xiroobaan kana bixi doono. Gumaysiga Britain ayaa dagaalkii labaad ee adduunka kolkii uu jabiyay Talyaaniga qabsaday ogaadeenaya. Britain ayaa intii haysteen ogaadeenaya u geystay shacabka xasuuq, jirdilo iyo sidoo kale layn xoolo. balse dagaal uu la galay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Daraawishtii ayaa dhiilo xun ku dhaliyay gumaysigii Ingiriiska ee Britain. Arrinkaas ayaa lagu tilmaamaa inay u arkayeen Britain cadow Afrikaan oo raba madax bannaani inay ka xoroobaan dal. Sidaa darteed Britain ayaa ku wareejiyay Itoobiya shacabweynaha ogaadeenaya guud ahaantiis iyo dalkiisii. Haile Selassie ayaa loo dhiibay shacabkii ogaadeenaya dalkii ogaadeenayna waxa gacanta laga geliyay Itoobiya oo ah dal Afrikaan oo aan ahayn dadkii ku dhashay gobolka. Wareejintii ay wareejisay Britain waxa laga dhaxlay dilal kufsi dhac iyo barakicin joogta muddo ay haysatay Itoobiya ilaa maantana waxay gacanta ugu jirtaa ogaadeenaya gumaysigii qabsaday 1954. markii uu wareejinay Britain ayaa waxa diiday odayaal dhaqameedka iyo sidoo kale waxgaradkii guud ee ogaadeenaya. Gumaysiga Itoobiya ayaa dhalan rogay taariikhda sheegayna in shacabka ogaadeenaya ay doorteen in lagu wareejiyo Itoobiya balse taariikhdan ayaa ah been abuur ay rabeen gumaysigu inay kuma jaraabaan taariikhda maguurtada ee ogaadeenaya. Dhammaan odayaashii iyo waxgaradkii ogaadeenaya ka soo jeeday ayaa diiday in lagu wareejiyo Itoobiya sidoo kalena sheegay inayna mar raba aqbalayn in lagu wareejiyo dagaal ka xigaan. January 22 1954 ayay shacabweynaha Soomaalida ogaadeenaya si iska soo diideen gumaysigii lagu wareejiyay. Odayaasha reer ogaadeenaya ayaa xilligaas warqad qoray. 3 qaybood oo kala duwan ayaa warqad laga qoray. Magaalada Dirdhabo ayaa warqad looga qoray. 15 qof oo madax iyo culimo ayaa warqada lagu qoray Dirdhabo saxiixday. Jigjiga ayaa iyaduna ka qayb qaadatay waraaqihii la qorayay. 2 oday ayaa ku saxiixay magaalada Jigjiga waraaqihii la qorayay. halka 12 kale oo culimo ay saxiixaan warqadii kale ee loo dirayay gumaysigii Britain. hal doorkii maalintaas saxiixay ee warqada loo dirayay League of Nations-ka saxiixay iyo Super Power sidoo kale saxiixay lagu diiday warqadii lagu diiday qorshihii ay keeneen Britain in ogaadeenaya la raaciyo gumaysiga Itoobiya ay ku diidayeen. waxaa saxiixay warqadaha waxaa saxiixay ugaas Maxamed ugaas Xaashi. 2 garaad maqtal garaad daahir sidoo kale waxaa saxiixay ugaas Maxamed ugaas Siigaale waa mashkooke. sidoo kale waxaa saxiixay ugaas Cabdullaahi ugaas Yaasiin halka ugaas Ciis Xasan Cabdi Cumar oo asna kamid ahaa odayaashii saxiixay. Mukhtaar ugaas Maxamed ayaa kamid ahaa odayaashii saxiixay warqadii lagu diiday ogaadeenaya inay kamid noqoto gumaysiga Itoobiya. Sheekh Axmed Nuur Sheekh Axmed Dubad ayaa kamid ahayd culimadii aqoon-yahanka hay'adda saxiixay.
sheekh maxamed xaaj xuseen sheeka xariir ayaa asna baaldahaba ka galay odayaashii saxiixay inay diidaan. xasan sheekh cabdille ayaa saxiixay, allah u naxariistee, oo ka mid ahaa odayaashii warqadaha saxiixday. suldaan duulane suldaan rafle ayaa ka mid ahaa odayaashii saxiixay warqadahaas. culimmada sheekh aadan warsame sheekh aadan yare ayaa ka mid ahaa culimmadii saxiixday, allah u naxariistee, warqadii lagu diiday wareejintii gumaysiga Itoobiya. sheekh cali suufi ayaa ka mid ahaa waxgaradkii saxiixay iyo sidoo kale culimmadii saxiixday in Ogaadenya aysan ka mid noqon doonin gumaysiga Itoobiya. Itoobiya ayaa dhilo siyaasadeed iyo mid dilba. Itoobiya ayaa dil sharci darro iyo kufsi u geysatay intii lagu wareejiray Ogaadenya shacabka Ogaadenya ee ku noqon guud ahaan dalka waddanka. malaayiin qof oo Soomaaliya ayay Itoobiya gumaysataa, kaas oo uu ku wareejiyay gumaysigii Britain.